marka horese deegaanada ay Soomaalidu degtay ee ku yaala geeska Afrika waxa muddooyinkii ugu dambeeyay soo maray abaaro isxigxiga oo galaaftay nolosha naf iyo maalba balse iminka waxa gobolka ka daaya roobab mahiigaana oo sidoo kale geystay khasaarooyin badan su-aasha ay dad badan isweydiinayaan xilligan ayaa sida roobabka mahiigaanka ah iyo raxmaadkaas ee xilligan da'aya looga faa'iideysan karo si loogu baxsado xilliyada abaaraha. Maxamuud Xaaji Cilmi Guure oo ah khabiir ka faallooda arrimaha deegaanka ayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay sababta ay wakhtiyadan dambe fatahaaduhu u dhacaan marka uu roob da'o. haddii aan gadaal u raacno taariikhdu waxyaabaha qaarkood waxay ku sheegayaan arrimahan inay muddo dheer soo jireen xataa waqtigii nabi nuux in ay jireen fatahaad nabi yuusuf waqtigiisi in ay jireen abaaro oo wakiit riyada markuu ku fasiraya 7 sano abaar iyo 7 sano barwaaqo ah marka waxaan wax hadda bilowday ma aha laakiin waxaa loo aaneeyaa inta badan xaalufinta deegaanka ayaa loo aaneeyaa inay keento roobabka oo sidii la rabay aanan u di'in xaalufka iyo soo noqnoqoshada abaaraha iyo daadadkan marka roobku da'o fatahaadtani miyay wada socdaan marka Maxamuudow maya horta sideedaba roobku marka uu da'o dhulka haddii ay dhir ku goglan tahay ama geedgaab ama caws ku goglan yahay waxaa badanayso awoodda uu dhulka biyaha ku dhuuqi karo ayaa badanayso marka waxaa yaraanayo biyihii dhulka ku dul cararaya ayaa yaraanayo marka waxyaabaha fududeeyo fatahaadda waxaa ka mid ah sida garoon diyaaradeed markii uu roob ku da'o waad garan kartaa biyuhu meelay ku istaagayaan male markii markaa mataqaana la qaawiyo ee dhirta laga qaado saas ayuu u ekaadaa ka ay roobku da'aan dhulkina uu xaalufsan yahay dhirtii la jaray ayay ahayd miyaanay qayb ka qaadato in biyuhu roobka ay hoos u degaan waa sidaa u tiri qayb weyn ayay ka qaataan qayb muhiim ay weliba ka qaataan sababtoo ah biyuhu dhulka ayay galayaan markay galaanna waxa ay kordhinayaan biyaha ceelasha ah ayay kordhinayaan oo biyaha dhulka ku jira ayay kordhinayaan waana faa'iido waana sida loogu talagalay deegaanka inuu u shaqeeyo laakiin marka deegaanka laga qaado dhirta ama cawska overgrazing ay meesha noqoto meel iska qaawan waxaa imaanaysa haddana dhulka Soomaaliya wuxuu yahay dhul u samaysan nooc maaragtay kala sareeyo oo biyuhu marka orod bay ku dhaafayaan marka laga reebo meelaha xeebaha u dhow sida shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo xeebaha inta u dhow marka laga reebo dhulka Soomaaliya intiisa badan uu janjeera kolka roobka maba ku hakanayaan haddii dhirta laga jaro marka fatahaadihii baa imanaya dhulkan biyihii dul cararaya ee uu dhulkii waaye awood uu biyihii markaa ku qabsado saameyn teeleg bay ku yeelanayaan in dhir iyo caws iyo gulaankii iyo dhirtii ay noqonay marka ay soo baxaan qayb weyn bay ku yeelanayaan sababtoo ah dhulka sidiisaba marka ay uu biyaha dhuuqo biyuhu qaar waxay noqonayaan hoos bay aadayaan oo marba marka ka dambayso waxay sii aadayaan hoos laakiin muddo 3 bilood ah waxay joogayaan meesha sare carradii bay qoynayaan oo carradii baa qoyaanka muddo ka dhamaanin laakiin hadduu dhulka qalalan yahay oo dhir waxba haysan biyuhu way ka dul gariirayaan oo 2 maalmood kadibna carradu way angegan tahay oo carradu ma ahay mid carradu markay angegan tahayna awood uma leh inay xajiso caws geedgaab iyo geedo kaleba ma xajin karto dabcan tiibooyinkan aan idhaahdee dabiiciga ah waa wax ilaahay wata subxaana wa tacaala qadar ilaahayna lama joojin karo marka maxaad isleedahay way ugu muhiimsan yihiin oo wax lagaga qaban karaa lagu yarayn karaa masiibooyinkaas hadda meeshayna hadda nala marayso Soomaaliya haddaan nahay meeshii nala marayso dalka Soomaaliya waxa weeye dhulkii oo la qaawiyey oo dadka reer miyiga aan dhaqan aan u lahaa jirin inay geed abuuraan inay jaraan mooyee kolka waxaad garan kartaa intaasoo sano oo 100 sano ayaana soo dhaaftay oo geed la jarayay kolka Soomaalida waxaan kula tali lahaa inay hadda qaataan fariintan ah nin kastoo Soomaali ah intuu nool yahay waa inuu abuuraa 100 geed fariintaas waa inay nin qof walba waa inuu qaato taa waxay keenaysaa in si degdeg ah dhaawac dhulka hore u gaaray oo uga soo bogsoodo marka Maxamuud aan ka dhex galo dhirta la beerayo dhirtu waa dhowr nooc dhirna waa dhir daaqa oo xoolaha iyo deegaanka geeli iyo adhiga iyo lo'di ay daaqayaan dhirna waa dhir magaalo marka hawdko kale maxaa laga beerayaa dhulka ay xooluhu degaan maxaa lagu la tacaalaya horto meelaha baadiyaha ah dhulka sidiisa waxaad u qabtaa inaan la lahayn dhulka markii dad ay leeyihiin ayaa la daryeelaa oo xirmo la sameeyaa oo aan la soo marin oo caws lagu abuuraa oo muxuu ah geedgaab lagu abuuraa oo iminka waxaa jira meelaha qaarkood waxaa loo yaqaanaa botany garden wax loo yaqaano ama dad baa sameeyey meel baad soo xiranaysaa waxaad ku abuuraysaa geedaha hareerahada ka baxo idil baad ku abuuraysaa adigoo markaa u arkayo in aad dadka tusi karto inta geed ee hareeraha meelahaas ka baxo taa maba aan gaarin anaga weli laakiin dadka waxaan kula talin lahaa in ay maaragtay ay culays saaraan dhirtu waa halbowlaha cawska iyo geedgaabka ayay aad ugu baahan yihiin dadka reer miyiga ah in loogu goglo dhulka si dhulka ay markaa degan yihiin oo u noqdo mid adkaysi u leh muxuu ahaa abaaraha waayahay Maxamuud ma oran karnaa dawlad shacab waayeel dhalin rag iyo dumarba waa mas'uuliyad saaran arrintaas waa mas'uuliyad wadareed baan oran karaa
kaasi wuxuu ahaa maxamuud xaaji cilmi guure oo ah khabiir ka faallooda arrimaha deegaanka wuxuuna u warramay waryaha BBC da cabdixaafid cawil ismaaciil.